asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaana wanaagsan dhammaan asxaabta nagu xiran muuqaalkan waxaan isku kortaagi doonaa guud ahaan siyaasadda immigrationka ama dadka soo galootiga ah sida programyada kale ah EES, AIP, IS, PMP, PSR, RNIP, RHC iyo barnaamijka loo yaqaan TR wasaacid xaaji aadan soo dhawaada mar kale. Canada waa mid ka mid ah dalalka ugu furfuran ee aqbala dadka soo galootiga ah. Siyaasadooda socdaalkana waxaa inta badan lagu saleeyaa baahida dhaqaale ee dalka, isu dheelitirka bulshada iyo arrimaha bini'aadantinimada sida qaxootiga. Waxaana jira dhowr waddo oo lagu yimaado Canada si sharci ah. Waxaa ka mid ah socdaalka ku salaysan dhanka shaqada economic immigration. Tani waa waddada ugu weyn ee dadka lagu keeno Canada. Waxaana loo isticmaalaa in lagu buuxiyo baahida shaqaale ee dalka. Barnaamijyadan kuwooda ugu waaweyn waxaa ka mid ah Express Entry System oo ah nidaam dhibco lagu xisaabiyo taasoo lagu qiimeeyo waxbarashada, waayo aragnimada shaqo, da'da iyo luqadda Ingiriisiga ama Faransiiska hadba qofku midda uu ku roon yahay. Provincial Nominee Program oo ah program ay gobollada qaar leeyihiin taasoo ay ku soo xushaan dadka ama shaqaalaha ay u baahan yihiin. Atlantic Immigration Program waa program inta badan dadka lagu geeyo gobollada bari ee dalka sida Nova Scotia, New Brunswick, Newfoundland iyo Labrador. Rural and Northern Immigration Pilot oo ah program inta badan dadka lagu dhiirigeliyo inay u guuraan magaalooyinka yaryar. Waxaa kale oo ka mid ah socdaalka qoyska ama waxa loo yaqaan family sponsorship, waana program qofka Kanadiyaanka ah ama deganaanshaha rasmiga ah haysta uu ugu dacwoon karo xaaskiisa, carruurtiisa ama waalidkiisa. Waxaa kale oo ka mid ah programka qaxootinimo iyo arrimaha bini'aadantinimada ee loo yaqaan refugee and humanitarian cases. Canada waxay si weyn u taageertaa qaxootiga, waxaana jira barnaamijyo dowladeed oo qaxootiga lagu keeno dalkan Canada. Waxaa kale oo jira private sponsorship of refugee oo ah program kooxo ama ururo gaar ah ay kafaalo qaadaan qaxootiga. Waxaa kale oo ka mid ah ardayda caalamiga ah international students. Ardayda ajaanibta ah waxay Canada yimaadaan iyaga oo leh student permit. Barnaamijyo badan ayaana u suurtageliya ardayda inay ka shaqeeyaan Canada dhexdeeda inta ay safarka waxbarashada ku guda jiraan. Sidoo kale waxa ay codsan karaan deganaanshaha rasmiga ah marka ay dhammaystaan waxbarashadooda. Waxaa kale oo jira programka loo yaqaan KMG-ga ama temporary residentiga kaasoo inta badan ay ku yimaadaan 3 qaybood oo kala ah visitorska ama dadka socdaalka booqasho qaraabadooda ugu yimaada dalkan Canada, work permitiska ama shaqaalaha ku-meelgaarka ah kaasoo ah program kuu oggolaanaya inaad muddo kooban Canada ka dhex shaqayso. Seasonal Agriculture Worker Program oo ah program xilliyo gaar ah la codsado kaasoo loogu talagalay dadka xoogsatada ah gaar ahaan dadka beeraha ka shaqeeya. Ugu dambayn, maxay tahay isbedelada laga filayo dowladda cusub ee hadda la doortay in ay programyadan ku soo kordhiso? Canada waxay qorsheynaysaa in la kordhiyo tirada dadka magangelyo doonka ah si loo buuxiyo baahida shaqo ee dalka. Waxa kale oo dowladdu xoogga saaraysaa ama wax ka beddel lagu sameeyay dadka xirfadlayaasha ah ama skilled workerska loo yaqaan, gaar ahaan kuwa ku takhasusay ICT-ga iyo guud ahaan qaybaha kala duwan ee injineernimada. Ugu dambayn, siyaasadda socdaalka Canada oo ah mid furfuran ayaa haddana inta badan diiradda saarta horumarka dhaqaale iyo isku dheelitirka bulshada. Haddii aad xiisaynayso inaad mustaqbalka u guurto Canada, waxaad u baahan tahay inaad si qoto dheer u fahanto nooca barnaamijka kugu habboon. Fadlan, haddii aad nala soo gaartay dhammaadka muuqaalkan, waxaa naga xasuusin ah inaad muuqaalka like garayso, saaxiibadaada la wadaagto si uu meelo fog u gaaro ugana faa'iidaystaan. Wixii talo ama tusaale ah waxaad noogu reebi kartaa qaybta commentiska. Hana hilmaamin inaad subscribe tiraahdo si xogaha aan channelkan ku soo gudbinno aysan marna kuu dhaafin. Intaan barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonno, nabadgelyo.